السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صباح نمد هراساك يا قرح وين وقد عي قبل كبنادر وحنا وركع صفا فحصنا نصيدنا وريها دافورتي في قبشوجا صعدان ماشي كسجن عبد هيكل. هيا عبد هيكل ومع سنتا محمد saakay subaxnimadii hore abaara afartii subaxnimo ayaa waxa uu qarax xoogan ka dhacay isgoyska Banaadir gaar ahaan wadada Isbitaal Madiina aada isgoyskaasi aad ayuu jaam u ahaa waxa laga raraa gawaarida BL-ka waa isgoys aad saxmad u leh qaraxaasi waxa la sheegaa in uu ahaa ismiidaamin gaari lagu soo raray waxyaabaha qarxa kaasoo lala eegtay taliyaha ciidanka gobolka Banaadir Farxan Qaroole xilli uu wadadaas marayay qaraxaasi waxa uu dhaliyay qasaaro naf iyo maal leh waxaana ku waxyeeloobay ganacsiyadii goobta ka dhawaa iyo gaadiid goobta marayay sida bajaajada iyo gawaari meesha ku baakinaa isbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee gobolka Banaadir ayaa kamid ah meelaha qasaaraha ba'an uu u geystay qaraxaasi inkastoo ay laamaha amniga aysan ka bixin faahfaahin dheeraad ah wixii ka soo kordha wararkeena dambe ayaad kala socon doontaan halkaad nagala socotaan waa Daahfur TV mahadsanid Cabdi Heykal haddii aan ugu cusub tihiin fadlan saar subscribe channelka Daahfur TV si aad u heshiin warbixinada soo socda mahadsanidin